muqdisho xilligan waxay u muuqanaysaa furin qaraxyada iyo dilalka u saaxiib ah cabsi walwal iyo quus ayay wajahayaan shacabka caasimadda ku nool shacabkan dawlad ma rabaan xaqiiq ma aha problemku shacabka ma aha problemku golaha shacabka ma aha problemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya sanadkan hadda uu bilowday ee 2019 waxa magaalada ka dhacay 23 qarax inta la xaqiijiyay 145 qof ayaa naftooda ku waayay qaraxyadan oo ay qaarkood daba socdeen weeraro toos ah shacabka muqdisho amni darrida waxa u sii dheer ganacsi xumo iyo dhaqaale la'aan sababtoo ah wadooyinkii halbowlaha u ahaa isku socodka gaadiidka iyo dadka ayaa gabi ahaanba xiran waxaana dadku lugeynayaan masaafooyin dhaadheer si ay u helaan nolol maalmeedkooda maalinlaha ah jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo amni xumida caasimadda waxaa sabab u ah qodobadan isbedeladii lagu sameynayay hoggaanka ciidamada labadii sano ee la soo dhaafay waxa ay keentay isku dhaxyaac iyadoo ay xusid mudan tahay in min 3 jeer la bedelay talisyada qaarkoodna 4 jeer kalsoonidii ciidanku ku qabeen madaxda qaranka oo gabi ahaan baluntay kadib hadallo xanaf iyo gaf ku ah ciidanka oo dhowr jeer ay jeediyeen madaxda dawladda iyadoo taasi sidoo kale ay keentay inay iska hor yimaadaan ciidamada iyo saraakiishii ay u arkayeen markaasi in jeclaysiga lagu magacaabay tan ugu muhiimsan oo ah inaysan lahayn inaan la siin caqiido ay ku dhintaan laakiin waa geesiin markay xabadda maqlaan waa wajahayaan meesha xabadda ka socoto laakiin sida ay shabaab caqiido u leeyihiin ay u aaminsan yihiin hadday dhintaan inay janno galayaan annaga uma diyaarsanin umana diyaarin ciidankeena wadaniyad magacaabistii Fahad Yaasiin ee agaasima ku-xigeenka hay'adda muqaabaraadka dalka iyana xaalka ayay sii xumaysay oo sababtu maxay tahay dabayaaqada sanadkii hore waxaa la kala diray inta badan ciidankii sirdoonka ee isugu jiray dhar cadii iyo kuwii la dagaalanka argagixisada ilaa haatan ku dhawaad 2600 askari ayaa laga saaray hay'adda nisa kuwaasoo meelo kala duwan lagu qoray ku dhawaad 737 dhar cadii hay'adda oo isugu jira saraakiil xirfad lagu soo xulay ayaa booliska iyo milishiibiyada loo wareejiyay ugu yaraan 1670 askari oo kamid ahaa garabka hubeysan ee nisa misna loo wareejiyay booliska ayaa marka laga reebo 200 oo tababar dalka Djibouti loogu diray kala yaacay oo suuqa hubkooda la galay waxa ayna shaqada laga eriyay iyadoo meelna lagu wareejin 300 oo ciidan dhar cad ah tani waxa ay sababtay in dalka uusan yeelan sirdoon isla markaana ay qaraxyadu 3 jibaarmaan wax ka hortagana la waayo isla xisaabtan la'aan iyo inaysan jirin cid qaada mas'uuliyadda amniga muqdisho waxay qayb ka tahay amni xumida ragaadisay caasimadda waxa mar u bareeray mas'uuliyadda amniga oo qorshe dhammaystiran la yimid gudoomiyihii iyo duqii hore ee muqdisho taabid cabdi maxamed wuxuu dalbaday in amniga muqdisho lagu soo wareejiyo lagulana xisaabtamo arrimaha nabadgelyada oo kale Soomaalidu waxa tiraahay lagu wareejiyo nabadgelyada haddii lagu wareejiyo mas'uuliyadda wad ka fiicnaanaysa hay'adaha amniga hadda gacanta ku haya sida nisa iyo booliska iyo gobolka banaadir ma ka fiicnaanay horta mar kastaba ma ahan aan kaliya qof wax lagu wareejinayo horta runtii waxaan ka hadlaynaa waa masrax jira oo ah golaha amniga ee gobolka banaadir aan wada shaqaynta taala inay lahaato mid la isku kaashado haday noqon lahayd heer gobol iyo heer qaran oo la isku kaashado laakiin ugu dambeyntii marka ay tahay heer gobol nidaamkeeda iyo isla xisaabtankeeda iyo wajiyadeeda in wada shaqayn guud laga sameeyo haday tahay mid gobolka iyo mid qaranka balse madaxda sare waa ay dafireen howlkarnimada uu muujiyay taabid waxayna xilka ka qaadeen 22 January 2018 maanta laga bilaabo cashuur baad bixinaysaa dukaan ku furaanaya ma jiro business kale ku furaanaysa ma jirto dawladdu waxa ay sheegtay in bulshada muqdisho bil kasta canshuur ahaan u bixiyaan 14 milyan oo dollar lacagtan marka la isku daro sanadkii waa 168 milyan oo dollar waana kala bar miisaaniyadda dawladda ee sanadkii oo dhan lacagtan oo si hufan dawladdu u maamusho waxa hubaal ah in amniga wax badan looga qaban lahaa balse ma dhicin madaxweyne farmaajo kolkii uu curdunka ahaa shacabka taageerada weyn u muujiyay waxay ahaayeen reer muqdisho nasiib darrase ballanqaadadii uu dareenkooda ku hantay waxba kama suurtagelin mina qaxayso maana laha
ومسيح هرانو ما كان